هلا السلام عليكم شمال العرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنك كل هذا يوري درويش waxaan doonayaa in aad waraysi kooban na siiso diyaar ma u tahay diyaar baan ku waayay General Care bal waxaad marka hore ii sheegtaa halka aad ku sugan tahay ee iminka aad joogto kulli gobolka Sanaag baad ku sugan tahay bal goobta aad hadda ku sugan tahay igala hadlayso ma sheegi karaysaa bismillahir rahmanir rahim anigu waxaan ku sugnahay Ceergaabo area waqooyigeeda ku sugnahay waxaan ku sugnahay meel 5 kiiloomitir Ceergaabo waan gartay General Care waxa jirtay waantii ku saabsanayd heshiisiinta jabhadaada iyo xukuumadda ee ay wadeen odayaasha dhexdhexaadka ahi inay mar dhexdaas ay hakatay oo xoogaa hakad ku yimi si hab sameeyo socodkeedii wararka qaar baa imika waxay sheegayaan inay dib idin ku bilaabantay oo hawshii dib ay u soo noqotay hawshaasi ma jirtaa aniga dadka dadka beeraha aan ka soo jeedo dalxajiis odayaashooda macnaqadeedkooda ay yihiin markaan ku wacdamay kadibna waa tuulaalay nuxus macaytaani kusheega taliyaha ciidanka halkii u dhigay maanta nabad geedka saaran odayaashii dhexdhexaadinta ku jiray qaarkood iyo waliba qaybo kale oo ku biiray waxay maanta galeen Hargeysa markaas waxaana la hadalhayaa saadaashu sheegaysaa ujeedada ay u tageen inay ka tahay sidii wada hadalkaasi dib ugu soo noolaan lahaa ama dib loo wada hadli lahaa ama maartay hawshaadii adiga xukuumadda hore loo sii wadi lahaa nimankaasi maxay iyagu halka u socdaan halka lafteeda ma yaad warka ahayn bismillahir rahmaanir rahim hadda kaaga jawaabo xaaladda guud halka iyo odayaasha adigu guud xasis oo kooban oo tira leh ayaa wuxuu dhigay oo gudoomiyada xasis ku jiro iyo salaadiin aad u fara badan iyo cuqaal iyo waxgarad iyo aqoonyahan ayaan wuxuu dhigay iminka iyagana ma wada socdaan way kala tabsan yihiin laba group bay kala noqdeen marka xaaladda wax ka xidhan ma jiraan nimankan Hargeysa qabtay markaynu soo raacno adiga iyo iyagu markaa ma wada socotaan oo ma is ogtihiin oo adiga wakiil ma ka yihiin oo hawsha maadaama tiri waa la kala jabay adigu dhinacan ma la socotaa anigu waxaan la socdaa guddiga xasis oo dhan cidna dhabarka saari maayo cidna dhinaca saari maayo la socdaa aniga suldaanka maxamed xirsiqani suldan maxamed xirsiqani groupkii go'aanka lahaa uu ka hadlay Ceergaabo ku dambeeyay iminka isaga waxaan abaabushay oo samaystay haddii ay isu soo noqonayaan iyagu oo garxaajisnimo wax ku qabanayaan waa wax la garan karo oo aanu dib isugu ogaanayno wax laakiin hadda aniga jinaax iga wakiilay ma jiro maxaad ka qabtaa haddii wada hadaladiina marka la dib u soo cusbanaadana waayeelkan maanta Hargeysa galay ay keenaan waan lagu geli karaa hawshii hore inay u sii socoto adigu fikirka maxaad ka qabtaa bismillahir rahmaanir rahim hadda wax jiraaba ma jiraan wuxuu baa tan u dhameeyay markuu u dhameeyay in dib wax loo yabjabo ummaddu si timaado taas waa qiyaabi waa wax ilaahay ku xiran laakiin wax iminka jiraa ma jiraan waa si fiican baan u gartay meesha aad ku sugan tahay maadaama tiri Ceergaabo waxay dhisanaysay yar baan u jiraa meesha aad sheegtay magaceeda ma ii sheegi karaysaa maya arrimahaas waa arrimo midatin kullayto maalmihii ugu dambeeyay adiga iyo ciidamo ka socda xukuumadda oo halkaas buuralida weerar baa idinku dhex maray iyo dagaal iminka markaa hawshaasi ciidamadii ma is hor fadhidaan mise waa isma hor fadhidaan arrintaan hadda kaaga warramo wuxtaani ayaa ciidamadii kala diray nin waliba beeshiisii uu qabtay markii uu qolyo kasta iyo cid kasta u sheegay inay reerkooda dhabato ciidamada nin kasta meeshuu kusoo jeeday buu qabtay marka waxaad leedahay iminka cabsi kama qabtid in ciidamada xaggooda weerar kaaga yimaado miya kama qabo waxaan ku darayaa weliye dadka caalamka oo dhan waxaan u sheegayaa in nabadgelyadu tahay qaali in aanay rabin sii xukuumadda ahayd ee haysay gacanta ku haysay ummadda basadkeeda iyo ciidamadeeda iyo booliskeeda iyo bulshadeeda ee nidaamkii dastuuriga gacanta ku haysay inaanay nabad rabin baan u sheegaya waxaan kale oo doonayaa inaan u iftimiyo bulshada dagaalka ka bilaabmay ceelkeena muddada dheer ka soconayo inuu yahay mid batrooliyiisa ah oo batroolka holhol laga soo bilaabo ilaa iyo dugoble
sidii masaajidada loo dumiyey inuu ku fadhiyo ceelal badoola iyo saliid qabuuraha ka socdaana inuu yahay mid lagula heshiiyo muddo ajnabiya in macdanta ku jirto ee ku duugan si contrabandism oo aan bulshada ogeyn loola baxo dagaalkaas horta waxaan usiganayaa inuu kaa yahay bulshada ku dhaqan dalka waayo sababta nabadgelyada diyaar uma aha waxaa caddeeyey ninka la yidhaaho nuux ismaaciil taani inaanay diyaar u ahayn nabadgelyo kaas oo keentay in ciidamadii burburaan in nin waliba uu qoladiisii qabto isagoo qorigiisa sita waxay keenaysaa marka ugu dambeysa inay dagaal beelaadba ka baxmaan haddii ummaddu wax kale haysteen dagaalka ha ku bigacdaan warku waa caynka aad iyo aad baad umahadsan tahay Sharaad Care waqtigaadna siisay iyo wareysigaad noo siisayba aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.